gudoomiyihii guddiga doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed Hirshabeelle ayaa ku gacan saaray go'aan xilka qaadis oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Cali Xuseen Guudlaawe ayaa waxa lagu sheegay in xilka gudoominimada iyo xubinimada guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle laga qaaday Axmed Xasan Diini isla markaana loo magacaabo xilkaasi Maxamed Xuseen Maxamed Waadi. balse gudoomiye Diini ayaa BBC-da u sheegay in xilka qaadistaasi aan loo marin qaab waafaqsan sharciga, waxaana madaxweynaha Hirshabeelle ku eedeeyay carqaladaynta iyo fargelinta doorashada. Goordhaweyd ayuu gudoomiye Axmed Xasan Diini ugu waramay khadka telefoonka. caqabad badan ku timid oo istortaag lagu sameeyo doorashada ayada oo doorashada dhibaatada haysa ee ugu weyneed madaxweynaha state-ka Hirshabeelle team oo asugu hogaaminayo ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano. arrintii baan isku qabanay waad arkayseen shalay guddiga doorashooyinka heer state waxay shaaciyeen 3 kursi oo la rabay doorashadooda inay isniinta qabsoonto. kuraastii ay shaaciyeen waxaa ka daba tegay oo hoostaag ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle, taasoo ah faragelin iyo dagaal qaawan oo lagu soo qaaday doorashada. intaasaa isku dhaca keentay. xalay siqdhaxana de waxaan arkayay warqad uu soo saaray madaxweynuhu uu leeyahay xilkan kaga qaaday gudoomiyaha de waana habraac iyo sharci ahaan wax tahay dastuuriya maaha. aniga waxaan ku joogaa warqad dikreta ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxday. asagu proposal buu leeyahay inuu codsi geysto in xilka laga qaadi karo, laakiin asagu xilka qaadis ma sameey karo. sida ku cad warqadda la soo saaray eedeymo fara badan ayaa lagu soo jeediyay oo ay kamid tahay xagaldacinta doorashada iyo hufnaan la'aanta shaqo oo dhanka doorashada. arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa? walaalow aniga haddaan xagaldaacinayo ama doorashada aan ninka hor taaganahay kuraas sooma dhejiyeen. waxaa markhaati ah ninkii kuraastii lasoo dhejiyey hor istaagay inuu yahay ninka diidan doorashadu inay socoto. waayo anigu shaqadeydii iyo mas-uuliyaddeedii waaba doorasho. haddaan qaban waayana dee shaqadii aan la ii igmaday baaban ku fashilmaya. waad og tahay waktigii doorashada waa soo gebagabashanaya 10 Maars ay ahayd. isteedyada intooda badan way soo gebagabeeyeen. annagana waxaana haysatay carqaladaas iyo faragelintaas. madaxweynaha ayaa tiim kala yimiday Jowhar oo watay halka la yimiday oo doorashadan beledweyne tiim dalaaliin ah oo dadkii ka shaqaynaya waxyaabo aan doorashada ku habboonayn oo gudiyadii iyo nidaamkii doorashada loogu talagalay inay ku socoto carqalad ku noqday. waxaan isku daynay inaan xal u helno. waxaan isku daynay inaan madaxweynahan yiraahdo madaxweynuhu sharciyada doorashada aan laga bixin. waan awoodi weynaa arrintaas uuna naga dhageysan waayay. de waxay isu bedeshay markii dambe khilaaf iyo inaan annagu mas-uuliyaddii aan lahaynay de annagu ma awoodi karno inaan cid gacanta u gelino aan shaqo ku lahayn. waan isla qabsanay. waxaan yiraahdo doorashadan waa doorasho guddi madax bannaan baan nahay. adiga ka madaxweyne ahaana waan kuu ogolnahay mas-uuliyaddaada, laakiin cid kale oon shaqo ku lahayn annaga nala maamulayso. intaas ayaa la isku qabtay. de waadna arkaysay oo wasiirka Hirshabeelle inuu warqad soo saaray oo aniga doorasho aan shaaciye ku joojinayo. taasaa marqaadimo doonta ah. eedeymaha kale ee lagu soo jeediyay waxaa kamid ah inaad baalmarteen habraaci doorashada oo kuraasta qaar aad dad u xirteen halkii tartan loo gali lahaa. arrintaa ma jirtaa? walaal waxba kama jiraan. waad og tahay doorashadii ugu dambeysay si qurux badan 5 qofood kuraasi ku tartantay annagaa qabanay. 4 qofood kuraasi ku tartantay waan qabanay. kuraastii waxa ugu yaray ahayd oon qabanay 2 qofood tartan ah. waxaan kuu sheegayaa marka annagu sidii doorashadaasu ay nidaamka iyo habraacu ahay baan u qabanay oon annagu waajibaadka u fulinaynay. balse doorashadu ciday ka dhaqaaqi waysay oo diiday inay doorashadu socoto oo kursi kasta oon isku dayno inaan waafajino nidaamkii iyo habraacii iyo diiwaangelintii naga carqaladaynaysa oo dhahaysa dib u dhiga ayadoo dana laga leeyahay qaasa. waa stateka madaxweynaha iyo tiim dalaaliina uu asugu wato oo dana qaasa kale doorashada. waxa aad eedayn u soo jeedisay madaxweynaha Hirshabeelle oo aad sheegtay in faragelin uu ku hayay guddiga. maanta ka horna lagama maqal in madaxweynuhu uu faragelin ku hayo guddigeena. soo ma muuqato eedayntaasi mid aad ku difaacanayso xilka gudoomiyaha guddiga? maya walaalow, horta sideedaba mas-uuliyadda iyo markaad qof xil haya tahay ma habboona inaad wax walba ku horordo ama aad fududaato. carqaladan iyo caqabadan way soo jirtay. xataa xogta waad haysaan in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isqabteen. waxaana sabab u ahaa annaga ayaa dacwad u gudbinay madaxweyne ku-xigeenka oo yiraahday war mas-uuliyaddii labaad oo Hirshabeelle tahay. caqabadan baa doorashada haysata. madaxweyne ku-xigeenka arrintaas inuu dhaxgala isku dayay. labadooda ayay arrintii ka tafatay. calal aqal madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yiraahday anigu ma awoodi karo inaan madaxweynaha xakameeyo. sidaasuu asaguna gacmaha uga qaaday. de aakhirkiina waxay dhaxashay inaan annaga iyo madaxweynihii isku soo bambaxno. annagana mas-uuliyadda iyo waajibaadka aan leenahay doorashada guddi madax bannaan baan nahay. de intaasaa nalagu haystaa oo biyo kama dhibcaana oo markhaati leh oo ummaddu ay og tahay doorashadu inay ka dhaqaaqi weysay madaxweynaha. kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Diini oo khadka telefoonka ugu waramayay